munaasibadan habka dhicitaan sida quruxda badan loo soo agaasimay ayaa ahayd mid uu dugsiga hoose dhexe Al-Xufaad uu ku sii sabootinayay isla markaana ugu dabaaldegayay bixitaanka in ka badan 100 arday oo ah ardaydii fasalada 8 dhamaysay waana dufcadii 14aad ee ka qalin jabisay dugsigan Al-Xufaad. Haddaba dugsigan Al-Xufaad waxa uu ka mid yahay dugsiyada ugu faacaweyn ee ka aasaasan caasimadda Hargeysa waana dugsi ay ku diyaarsan yihiin dhammaan qalabkii ardayda u saali lahaa in ay si fudud uga meedhaliyaan higsigooda mustaqbal. Ujeedada loo aasaasay dugsigan Al-Xufaadna waxaa ka mid ah inay soo saaraan arday ka dhisan aqoon ahaan, jidh ahaan iyo akhlaaqiyanba isla markaana ka fayow aragtiyaha khaldan sida balwadaha, qaadka, taariibka iyo wixii la mid ah. Sidoo kalena dugsigan Al-Xufaad waxa uu dheeryahay dugsiyada kale in maamulka iyo macallimiinta dugsigan Al-Xufaad in si gaar ay u tixgeliyaan ardayda xufaadda ah ee dhamaysay Qur'aanka Kariimka isla markaana rabta inay dugsigan isqoraan inay u diyaariyeen waxbarasho ku habboon ardaygaasi. Munaasibadan ayaa ka qabsoontay Hotel Safari ee magaalada Hargeysa waxayna kulmisay mas'uuliyiin ka tirsan wasaaradda waxbarashada oo ugu horeeya madaxa imtixaanaadka wasaaradda, culimooyin, salaadiin iyo maamulka sare dugsigan Al-Xufaad, waalidiin, macallimiin, arday iyo masharaf kale tiro badan. Ugu horeyn waxaa munaasibadan ka hadlay maamulaha guud ee dugsigan Al-Xufaad Farxaan Maxamed Faarax wuxuuna ku dheeraaday marxaladii uu soo maray dugsigan, sidoo kalena waxa uu u hambalyeeyay ardaydan maanta ka qalin jabinaysa dugsigan. ardayda maanta ka baxaysa Xufaad waa dufcadii 14aad tiradoodu waa 111 hablood iyo 50 inan ayaa ka baxaya. safar dheer bay u soo galeen runtii rixla tacliim oo aad fog ayay soo galeen. waxaan filayaa qaarkood halkan waxa la igu keenay iyagoo ilkala aqoontuna waxaan idinku dardaarmayaa inaanay ahayn taa maanta dhamayseen. runtii madrasada Al-Xufaad waxyaabaha 14 sanadood ay waday iyo manhajka ay qaadatay ee ku taabaqaaday waa manhajka luqadda carabiga ku baxaya. runtii in badan baynu isku dardaarnaa in aynu marxaladaha ibtidaa'iga iyo asaasiga ahba aynu da'yarta ku barbaarino luqadda carabiga. sidoo kalena waxaa hadalka isaga daba maray gudoomiyaha imtixaanaadka Soomaaliland Daawud Axmed Faarax, Sheekh Xasan oo ka mid ah aasaasihii dugsigan, Axmed Cali Saciid oo ku hadlayay afka waalidiinta, macallimiin, culimooyin waxayna mas'uuliyiintan si wadajir uga marakaceen tayada waxbarasho ee taala dugsigan Al-Xufaad. waa madrasada kaliya ee xafiiska imtixaanaadku runtii aw raaliga ka yahay qaabka ay u dhigaan ama qaabka imtixaanaadka u sameeyaan kolka loo eego madrasadaha kale. runtii waana madrasada kaliya inuu inta badan mas'uuliyiinteeda imtixaanaadku hawl kastoo nu hayno aanu uga soo kacno annagoo ku samaynay tijaabooyin fara badan. markaa cidda u ehelka ah runtii madrasadan aasaasiyaasheeda ama ragga mas'uuliyiinta ka uu Sheekh Xasan ka mid yahay waxa weeye waa ragda ehel u ah aqoonta. runtii waxaan jecelahay inaan u hambaleeyo ardayda inamada iyo hablaha bale ee imika halkan ila fadhiya waa dufcadii 14aad ee ka qalin jabisay iskuulkan Al-Xufaad. inama iyo hablaba waxa ka muuqda nuurka cilmiga, akhlaaqda islaamiga ahayd. run ahaantii anigoo ku hadlaya afka waalidiinta halkan imika nala fadhiya waxaan ku qanacsanahay inuu iskuulkan Al-Xufaad ka baxdeen uu yahay iskuul tayo leh. waxaan ka mid ahaa sida uu macallinkayga Xasan uu xusay ardaydii ka baxday sanadkii 2009kii 2008 runtii macadka Al-Xufaad waxa uu dikrayaad baan ugu leeyahay ama xasuusteeda aad buu ugu jiraa. ardayga Al-Xufaad ka soo baxay xaqiiqatan wuxuu u dhabar adaygi karaa ama uu ka gudbi karaa qaybaha kala duwan ee waxbarashada. waxaana halkaasi ka maqan xubno ka mid ah ardayda dugsigan waxayna dhammaantood halkaasi ku soo bandhigeen waxyaabaha ay ka barteen muddada ay dhiganayeen dugsigan. بالجهة الأخرى لا يمكننا أن ننسى مدراءنا الأفاضل. وفقكم الله يا مدراءنا الأفاضل على كل ما قدمتموهم لنا، ولكم منا كل الشكر والتقدير على جهودكم المتميزة، وندعو الله أن يمنحكم السعادة ويرزقكم بالصحة والعافية. gunti iyo gabagabadii waxaa halkaasi lagu sharafay isla markaana shahaadooyin lagu guddoonsiiyey ardaydii kaalmo hore u gashay imtixaanaadka uu ka qaaday dugsigan. Cabdiweli Yuusuf Cumar, Bulsha TV, magaalada Hargeysa.